degmada Alver ee duleedka magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa waxaa lagu soo xiray nin 30 jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Eritrea ee dhaca geeska Afrika haystana dhalashada waddanka Norway. 30 jirkan ayaa ku eedeysan dilka sodohdiis ama haweeneyda uu qabo hooyadeed oo 50 jir ah taa oo iyaduna ku nooleed degmada Alver ee duleedka magaalada Bergen. booliiska ayaa sheegay in lagu soo wargeliyay haweeney 50 jir ah oo Mir Doorson markaasoo ay sheegeen in ay si degdeg ah ku gaareen guriga ay ku sugnayd haweeneydan ee lagu soo wargeliyay. waxa ayna boolisku sheegeen in ay adeegsadeen rondooyin badan iyo ciidamo badan oo ay barbar socdaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si loo baadigoobo cidda ka dambeysay dilka haweeneydan. haweeneydan oo Mir Doorson ayaa laga soo qaaday degmada Alver waxaana degdeg loo soo gaarsiiyay isbitaalka Hogland ee magaalada Bergen. haweeneyda ayaa lagu soo waramayaa in 2 maalmood kadib ay u geeriyootay dhaawacii ka soo gaaray falkii isku dayga dilka ahaa ee lagu geystay degmada Alver ee duleedka magaalada Bergen. booliiska ayaa sheegay in ay rondooyin aad u badan sameeyeen markii uu dhacay falkani waxa ayna ku soo waramayaan ilaa iyo waabarigii in ay wadeen baaritaanka iyo cidda ka dambeysay dilka haweeneydan. ha yeeshee 30 jirkan uu waaga markii uu baryay uu ku soo wargeliyay oo uuna booliiska soo wacay waxayna sheegeen in ay soo qabteen oo ay xabsiga u soo taxaabeen. booliiska ayaa sheegay in eedeysanahan lagu xukumay 4 toddobaad oo xabsi gooni ah oo aan la booqan karin lana soo salaami karin. waxa ayna sheegeen in ay midda u sameeyeen in baaritaanku uu si taxaddar leh u socdo lana baarayo si aysan u tirtirmin daliilaha loo adeegsan karo ninkan dembiga lagu soo oogay. eedeysanaha ayaa isagu aad u diidan in uu falkaasi ka dambeeyay. booliiska ayaa xaqiijiyay in haweeneydan 50 jirka ah ee u geeriyootay dhaawacii soo gaaray 2 maalmood ka hor ay tahay hooyada dhashay gabadha uu ninkani qabo 30 jirka ah. waxa ayna ku soo waramayaan in labaduba ay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Eritrea ee dhaca geeska Afrika waxayna intaa ku dareen in labaduba ay haystaan dhalashada dalka Norway. qareenka loo qabtay haweeneydan intii ay dhaawaca ahayd haddana ah qareenka u doodayo ilmaha ay haweeneydan ifta kaga tagtay Shitel Otezen ayaa sheegay in ay xaaladani tahay mid aad u murugo badan. waxa uuna intaa ku daray in ay aad uga xanuunsadeen qoyskani dhibkan baaxadda leh ee soo gaaray iyo dhacdadan naxdinta badan ee ay hadda la murugoonayaan. waxa uuna intaa ku daray in dhacdadani ay tahay mid aad looga naxo qoyskana uu ilaa iyo hadda la anfariirsan yahay murugo baaxad weyna ay ka muuqato. eedeysanaha ayaa isagu diiday in uu falkani ka dambeeyay. waxa uuna qareenka u doodayay 30 jirkan oo lagu magacaabo Einar Ryan uu sheegay inuusan ninkani qirsanayn dilka. waxa uuna intaa ku daray in uu racfaan ka qaadan doono 4 toddobaad ee xabsiga goonida ah ee lagu xukumay. dacwad oogaha booliiska Evil Veleman ayaa intaa ku daray in aysan hadda wax faahfaahin ka bixi karin oo uu socdo baaritaan aad u xoogan. waxa uuna intaa ku daray in ay guriga uu ninkaasi deganaa iyo sidoo kale gaarigiisa ay boolisku baaritaan xoogan ku sameeyeen. waxa ayna boolisku sheegeen in aysan jirin cid kale oo ay ku tuhmayaan dilka haweeneydan 50 jirka ah ee asal ahaan ka soo jeeda waddanka Eritrea. dhanka kale madaxa saxaafadda ama warfaafinta booliiska Arne Lutro ayaa ka codsaday dadweynaha guud ahaan ku sugan deegaanka Alver iyo agagaarka Osana ee magaalada Bergen ee haya wax cadeymo ah ama video ah in ay la soo xiriiraan booliiska. waxa uuna intaa ku daray in la arkay markii ay dhacdadani dhacaysay nin baaskiil ku wadanaya aaga kaa oo ay boolisku ka codsanayaan in uu la soo xiriiro maadaama laga yaabo in uu wax ka arkay waxa meesha ka dhacayay. si taalamida ayay booliska ka codsanayaan cid kasta oo ku sugnayd habeennimadii Khamiista ee 16 bisha Oktoobar agagaarka Kanarvik ilaa iyo Osana in ay la soo xiriiraan booliska oo wax kaamiro ama dhacdooyinkaasi wax ka arkayay. arrintan ayaa dad badan waxa ay ku noqotay fajiciso iyo murugo qaasatan dadweynaha ku nool deegaanka Kanarvik ee duleedka magaalada Bergen. ninkan sodohdii dila ayaa hadda waxaa lagu xukumay 4 toddobaad oo xabsi ah waxaana socdo baaritaan. dhacdadan ayaa ah mid la yaab iyo amakaa ku noqota reer Kanarvik iyo reer Alver oo ah deegaan ku yaala duleedka magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway. waxayna qoysku muujinayaan murugo aad u baaxad weyn maadaama falkan cidda la dilay iyo cidda wax dishaba
ay qoyska ka wada tirsan yihiin. Halka wararka kuwooda ugu doorkaroon uu idinkaaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.